Hello kusoo dhawaada maangal iyo mar kale waa muuqaal afraad aan ka sameynayno basiska luqadda javascript so far waxaan aragnay in wax loo shaaciyo in la yiraahdo number aad kaydin kadib in aad kaydin kartid waxa la yiraahdo number ana u kaydin kadib qaadato const ama maanta let aan adeegsano let x aan u bixino 5 aan dhahno inaad shaacin kartid waxaan u bixinay string isla tabtii aad soo martay meeshii halkaa tirada ay ahayd baa waxaa ka dhigaysaa string tusaale ahaan maanta let aan adeegsano string aan u bixino person aan dhahno personka waxaa la yiraahdaa diiwaan waxaan soo aragnay inaad u kaydin kadib xogta qaabadan waa qaabad xogta loo kaydiyo labadan waa isku midkii exactly in aad u kaydin kadho qaab array ah tusaale ahaan oo kale array aan u bixino let intaan ku shaacino aan dhahno students sida muuqaalkii hore sameynay students waxa weeye tusaale ahaan oo kale diiwaan iyo waxaan ugu jira bayle waa array kasoo qaad maanta waxaa rabtaa inaad qof keliya xogtiis kaydisid ma rabtid inaad arday saan oo kale students waxaa yidhahda qof kasta magaciisa gaar u kaydisid magaciisa array ay dhex gelisid hal qof baa rabtaa inaad kaydisid magaciisa koowaad magaciisa labaad iyo natiijadiisa iyo da'diisa tusaale kasoo qaado kale afarta xog baa rabtaa inaad kaydisid waxaa samayn karaa inaad dhahayd const intaad dhahayd first name magaciisa meel ku qortay haddana const kala shaacisid last name haddana age haddana results natiijadiisa afartii mid gaar u shaacisid waxay noqonayaan afar xabo saa isku taalo ama const adeegso ama let adeegso waxaa kaloo samayn karaa inaad adeegsatid array adeegsatid oo dhahayd tusaale ahaan oo kale let tusaale ahaan oo kale person aan dhaho mise person aan soo shaaciyo ama person aan iska dhaho person 2 aan iskaga bixiyo person hore soo shaaciyo بعدين waxaa dhahay magaciisa koowaad soo shaacinaya magaciisa koowaad waxaa lahaa qofkan gelle magaciisa labaadna waxaa la yiraahdaa cali agekiisa waxa weeye 42 52 53 natiijada keena waxa weeye kasoo qaado kale something 73 saa waa u kaydin kartaa laakiin tan wax laga garanaya ma leh gelle iyo cali maxaa ka dhexeeya tiradan kale maxay tahay waa qaab aad u kaydin karto laakiin qaabad kale oo ka fiican baa jira waxaan waa array ka kooban aan isku dhex darnay strings iyo numbers caadi waa samayn kartaa laakiin qaabad kale oo ka fiican baa jirta inaan isticmaalno waxa javascript loo yaqaano ama casharkeena maanta object maxaa samaynaya waxbaa shaacinaya marka koowaad let ama const shaaci magaca inta u bixe liibaan kan iga tirtir person aan iska sida aan dhaho tusaale ahaan oo kale person double n aan ka dhigo si uusan kaa ugu khaldamin person saade kabacdina waxaa furataa curly braces waxaa yidhahda kuwa noocaas markii la define garaynayo array waxaa la adeegsan jiray square brackets kan waxaa la adeegsanaya noocaasa usoo qalloocsan baa la adeegsanaya okay kabacdina waxaa dhahaysaa qof maxaa rabtaa inaad shaacisid saana dhihi karta maxaa rabtaa inaad shaacisid magaciisa koowaad magaciisa labaad magaciisa koowaad maxaa weeye magacaas kaga bixino magaciisa koowaad first name aan bixino magaciisa koowaad waxaa dhiganaysaa kabacdina labada dhibcood baa dhiganaysaa kabacdina waxaa sheegaysaa magaciisa koowaad aan bixino markii liibaan baa bixino soo mahayn kabacdina waxaa dhiganaysaa comma magaciisa labaad waxaa dhahaysaa tusaale last name waxaa dhahayaa last name waxaa bixina markii I don't know gelle maxaa kaloo shaaciyey agekiisa waxaad intaa u bixin kartaa yani kuwan anaa last name first name age u bixiyay lakin waxaad intaa u bixin kartaa agekiisana waxaa nidhi tusaale ahaan oo kale 53 waxaa kaloo shaacinay result waxa u bixinay natiijo waxay u tahay garan mayno 73 waa nidhi qofkii maxaa ku kaydinay xogtiisii oo dhan waxa u kaydinay qaab ah lamaane meesha arrayga markii aan dhahaynay waxaa dhahaysaa liibaan gelle 53 73 aan la garanayn waxa ka dhexeeya hal mar aad meel ku wada xaraysay kan waxaan dhahaynaa liibaan waa first name gelle waa last name 53 tirada meesha taalla waa age 73
waa result intiba waxaa siisa mid kasta magaceeda siisa haddaba object waxa la yidhahdaa maxay object waa qaab loo kaydiyo xog beer ah lamaane ah tusaale ahaan xogtii iyo lamaane ay wadato mid ay wadato oo loo yaqaano marka javascript uu joogo waxaa loo yaqaanaa key baa loo yaqaanaa waa magaca xogta siisay waa furihii aad siisay oo qofku kula soo bixi lahaa kana waa value waa qiimii keygu hadda maanta first name value liibaan key labaad waxaan shaacinay last name value gele key saddexaad age value 3 mid afraad key result 73 hadhow markaa rabana qofkii la xiriiro aan dhaho first namekiisa shashada igu soo daabac console.log baa adeegsanaya waa intii taqaanay console.log kasaadhaya console.log waxay soo daabacdaa u fiirso marka magacii baan soo qaadanayaa person waa soo qaadanaya kabacdi waxaa dhahayaa dot kasaa dhahayaa yaa maxaa rabaa inaan la soo baxo first name soo first name kana u bixiso first name la soo first name caadi u qor first name shashada waxa ay soo taagay person qofka la yiraahdo magaciisa koowaad wuxuu soo dhigay diibaan haddii meesha ka dhigo hor last name shashada wuxuu soo dhigay gele haddii meesha ka dhigo age muxuu ka dhigay 53 haddii meesha ka dhigo tusaale ahaan oo kale result muxuu soo dhigay 73 mid kasta uu soo dhigaya si kala jirta dot marka tan maxaa adeegsanay dot baa adeegsanay saa oo la xiriirno property waxa property loo yaqaan intaana guud yani property la isku yiraahdo waxaan waa property-ga value-geedii waxaana waa key waxaana property haddaba property markaan la xiriirnay markaan waxaa adeegsanay dot baa adeegsanay dot taas ku jirta dot taas adeegsanay wax kala adeegsan karta inaad ahayd isla tan soo qaado mar labaad baa isla result-ga la soo baxayna laakiin qaadad kale la soo baxayna loo fiirso meeshan dot kan yari maanta waxaa dhahaynaa waxaa soo qabsataa waxaa furataa square brackets furo kabacdina waxaa qorataa waxaad la soo baxaysa magaciisa maanta waa result laba jeer buu daacsan 73 hore kanay ka timid dotku markaa adeegsanay 73 labaadna kanay ka timid markaa adeegsanay qaabada square brackets labadan qaabba waxay ku saareen yani waa laba qaab oo la xiriiri kartid property-ga object-gaas tusaale ahaan kale hadii aad rabtid oo kale ka soo qaad first name inaad bedeshid baa rabtaa kaliya waxaa dhahaysaa person dot first name markaas hadda wuxuu la mid yahay haddaan bedelaynaa right now waa bedelaynaa first name-ku wuxuu la mid yahay baa dhahaynaa tusaale ahaan oo kale daahir all first name yaa noo ahaa liyan baa noo ahaa hadda first name-kii daahir buu bedelaya tusaale meesha haddaa dhaho first name soo saar meesha result ilaahay first name soo saar first name amar aan siiyey first name amar daahir soo saar meeshan first name waxaan ugu qoran liibaan laakiin amarkaan ka dambeeyo oo ah first name daahir bedel ka war haddaan rabaa first name delete gebigiisa waxaan dhahayaa delete ereyga la adeegsanaya uu diyaarsanaya delete kabacdina intaan toos soo koobiyeynaya delete person first namekiisa delete baa dhahayaa tan saade person first namekiisa delete amar baa siiyay marka intaan amar bay ahayd xogtaa uu kaydi amar kale ka dambeeyay first name bedel daahir uu bedel amar saddexaad baa ka dambeeyay oo ah first name ka delete ba object-gan person la yiraahdo first namekiisa gebigiisa delete wuu delete hadda maanta meeshaan fiiri aan dhaho first name ka soo daabac halkan amarkan waxa weeye first name ka soo daabac console.log waxa soo daabacdaa first name maanta muxuu siinayaa undefined intaana tan samayn fiiri hadda tan comment ka dhigo fiiri tan delete ka dhigo tan waxa soo baxaya daahirkii laakiin tan markay shaqeyso wuu baxaya kana wuxuu noqonayaa undefined qiime aan jirin first name waxa loo ma jiro ku dhahaya maba jiraba kan totally ma jiro waa la tuuray hawada laga saaro haddaba waxaan filayaa object inta ugu muhiimsan waa intaas hada wallahu aclam inta kulmayna muuqaalka xoge salaam